madaxweyne ku-xigeenka dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si rasmi ah koobkii u guddoonsiiyay kooxdii horyaalada ee sanadka 2024 ee dawladda hoose magaalada Burco ee maalintii shalay ka guuleystay dhigooda ciidanka asluubta oo soo gabagabeeyay horyaalada ee socday bishii ugu dambeysay garoonka Cabdalla Stadium ee magaalada Berbera ayaa saaka waxa ka soo qayb galay bixinta biladaha iyo sidoo kale koobka horyaalada madaxweyne ku-xigeenka dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo waliba wasaaradda ciyaaraha iyo xiriirka kubadda cagta waxaana halkaasi sidoo kale uu madaxweyne ku-xigeenku oo abaalmarino guddoonsiye qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo waliba mas'uuliyiinta dekedda Berbera iyo ciidanka amniga ee ka qayb qaadanayay ciyaarihii ka socday magaalada Berbera waxa uu sidoo kale abaalmarino iyo sidoo kale bilado u guddoonsiyay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ciyaartii maalintii shalay iyo sidoo kale kooxda dawladda hoose ee magaalada Burco hadal ayuu madaxweyne ku-xigeenku ka hor intii aanu biladaha aanu guddoonsin halkaasi ka jeediyay waxa uu mahadnaqay dhammaanba kooxihii kala duwan ee ka qayb qaadanayay koobkaasi isagoo si gaarana u hambaliyay kooxda dawladda hoose ee magaalada Burco maanta waa bisha tahay 6 arbacada waxaad la socoteen dhammaantiin in shalay uu dhammaatay tartankii horyaalada Soomaaliland garoonkana joogna ka dhammaaday gabaxoon nooga dhacay runtii wuxuu ku dhammaaday labadii kooxood isku soo hadhay ugu dambeeyay oo kooxda horyaalka asluubta Hargeysa iyo kooxda horyaalka dawladda hoose ee gobolka Togdheer degmada Berbera degmada Burco wuxuu ku dhammaaday inay ku guuleysteen horyaalkii dawladda hoose ee Burco 3 ka adkaadeen kooxdii la ciyaaraysay runtii ciyaaraad qurux badan bay ahayd shalay galabta ciyaarta ka dhacday dalka Soomaaliland oo dhan dareen wax kale uma jeedin kii joogay kii maqlaaya telefishinka la socday waa runtii waxay ciyaaraad aad u xamaasadooda qurux badan ciyaar runtii ummadda ka jeedisay waxyaabo badan oo loo baahnay oo lagu mashquuli jiray ilaa maanta ciyaarey wax soo dhamaadeen oo bisha buuxda socday si nabadgelyo ah iyo noogu soo dhamaadeen taana ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa waxaan kala mahadda labaad siinaynaa ciidamada amniga kala duwan runtii iyo maamulka degmada iyo gobolka ee saaxil oo martigeliyay runtii hawshani sharaf weyn baan u haynaa hambalyo iyo waxa siinaynaa ducaa siinaynaa iyo hawshoodii xilkoodii si wanaagsan u gutay imika waxaanu joognaa gabagabadii xalay iyadoo waqtigu gabaxoon naga dhacay waxaa la isla gartay in habeennimadii casho loo sameeyo labadii kooxood isku soo hadhay finalka ay wada casheen xalay halkaas isku macsalaameeyeen saakar waxaan ku siinaynaa koobkii ayaan ku siinaynaa kooxdii ku guuleysatay ee horyaalka dawladda hoose ee Burco aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi